magacaygu waa Mukhtaar Cali Cabdi maanta madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland guul la xaale oo la taaban karo midnadeedii leedahay soo hooyay sababtoo ah wuxuu ka sheekay halgankii ummadda Soomaaliland si loo xaqooqay wuxuu xasuusiyay jiilka yar ee aan waxba ogeyn ayuu maanta madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan looga baqanayn maanta Muuse Biixi Cabdi maanta wuxuu dusay shacbiga Soomaaliland ee dhalinyarada ah inay Soomaaliland tahay dawlad jirta madax bannaan dastuur leh baarlamaanti leh ونيك فرماتشة مدحوينة شيء ونيكي عنا قبضتين نقبتين ونيكي أود وين عيدا مدي سسيوي مشارك استقوا دولار حسيريان برلمان كيف لقى عونية فرماتشة والعقل الصيني مدحوينة قرك عيدا مدى الصومال يعني ملك الصومال لان دولة الصومال ما بيحصل يدور عالم بحرين لابد يقف حديث تداول كالتقيان صومالي وحالية وحا نور دحية دقاء المويه يحكي متشلو مدحوينة وهم بالينيا جبوتها وجوه رئيسه إن الصوماليا كبيرته nimanka ay kiilka shanaad inuu soo gooyay Abiy Ahmed ugu horeeyay dhaqo waa ku diray kiilka shanaad Soomaaliland midnimadii ku soo biir diyaar batawnaha laakiin se Soomaaliland inta la kaxay dib loo kaxay si ariga yeeli meynaadeer labada farmaatiyo waxaan sheegay baalkii Abiy Ahmed iyo ninka Djibouti haysta madaxweynaha qarankana waxaan leeyahay hambaliyo mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha qaran baatay u arkaa wadahadal la qaldan sababtoo ah Soomaaliya kuma garawsanaynay kulaysay kuma garawsanaynay wax ku yeeshay maxay haday sidoo kale to maxay haday dawladnimadeedana weydiidantii kuguma raaxsana wixii shirarkii hore dhacay wixii lagu heshiiyay ilaa aad fulisaan wax wada hadal inoo ma yaalo marka shirka hadalka madaxweynahana waan taageersanahay uma arkaan wax midho dhalaynayniyo shirkaasi oo ka dhacayo shirkaan ma qaban natiijo ka soo baxayso kaliya shirka Soomaaliland ba ka faa'iideeyay Soomaaliya faa'iido ugu jirta ma jirto waxaan leeyahay Soomaaliyan waxaan leeyahay say Ingiriiska iyo Mareykanka u kala bixin markaas ay u kala bixin laba dawlad oo yihiin waa in Soomaaliya Somaliland aqoonsigeega barta kaga dhawaaqda waan leeyahay waa Idris Bershiya telefishinka Universal magaalada Hargeysa